maanta Ibrahim wakayna hor fadhiya waa ninka xooga dhalinyarada waxa ku jiray galkiisa shahaadadii uu saxay madaxweynuhu ee dilka ahayd komishinka xuquuqlisaanka qaranka Soomaaliland oo kaashanaya dad muxsiniin ayaa ku guuleystay inuu xorriyadiisa helo maxbuus Ibrahim Aadan Maxamed oo loo yaqaan Baydhabo oo muddo 22 sano ah u xidhnaa dil uu geystay maxbuuskan ayaa xilli la amray in la qasaaso balse qadarka alle aanay dhicin komishinka xuquuqlisaanka qaranka Soomaaliland ayaa qayb ka ahaa magtii laga bixinayay maxbuuskan iyo dad muxsiniin ah iyagu u kacay in maxbuuskan laga bixiyo magtii loo haystay Aqil Cabdalla Iskoor oo ah dhinaca libanaha ka ah maxbuuskan ayaa isagu xusay in qorshuhu ahaa in la qisaaso maxbuuskaasi balse aanay dhicin in badan ayaan isku soo noqonay oo marba kala tagnay oo hadana isku soo noqonay akhritaankii waxaanu wadnabada waa ka heshiin maanta Ibrahim wakayna hor fadhiya waa ninka xooga dhalinyarada waxa ku jiray galkiisa shahaadadii uu saxay madaxweynuhu ee dilka ahayd nasib wanaag waka maanta ka nool ee dibadda ka jooga ilaahay ma qadarin marka looma yareysano in la qisaaso ayuu qorshuha marka anaguna waxaanu hayn cidii dhinacii dibta loo geystay odagooda baan Aqil Cabdalla Iskoor ayaan hay sidoo kale odayaashii ka shaqeeyay in magta laga bixiyo maxbuuskan iyo odayaasha maxbuuskan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaana arrinkan soo dhaweeyay tii baanay ku samreen ilaahayna waa kan maanta gaarsiiyay in muddada 20 sanadood ku dhow uu dadiyadii dib loo galo arrintiina dib loo galo ilaahay ma hadii waxa maanta la soo gaaray inuu Ibrahim uu xabsigii ka soo baxo diyadii laga bixiyo marka ugu horeen waxaan u mahad celinayaa eheladii diyada lahayd oo naga aqbashay oo ogolaatay in Ibrahim dilka laga cafiyo diyana loogu bedelo diyadiina ay qaataan aad baan uga mahad celinaynaa bulshada ku nool reer Soomaaliland iyo ina kamid oo qurba jooga oo iyo dad inaga maqan bale oo dhamaantood ka tacab galay muddada aanu soo wadnay sanadka gaaraysay marxalado kala duwan bay nala soo martay waxaan uga mahad celinaynaa kaalintii ay ka qaateen ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxaan kaloo u mahad celinaynaa Aqil Cabdillaahi iyo odayaashii reerka dhibanaha oo runtii si fiican noo soo dhaweeyo muddo fara badan aan kulanay ka wada hadalnay hawshan oo markii dambe nala qaatay oo run ahaantii reerkan waxaan kaloo uga mahad celinaynaa maadaama dilkii ay ka cafiyeen oo ay ogolaadeen inay magtii qaataan ilaahay baana mahadlay alxamdulillah maxbuus Ibrahim Aadan Maxamed oo loo yaqaan Baydhabo oo muddo 22 sano ah ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo la xidhnaa dil uu geystay ayaa dareenkiisa ka hadlay waxaan ahay maxbuuskii xabsiga ku jiray ee laga soo daayay xabsiga Hargeysa ee dilka loo haystay 22 sano iyo adiga dheeraadka ku jiray ilaahay baa mahad iska leh nolosha adduun waa ka qoostayba marka sida runta xaqiiqada laga hadlaa waa ka qoostayba marka dadkeenan ayuu ilaahay iikiin soo diray marka waa ku maasantiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka komishinka xuquuqda aadamaha qaranka Soomaaliland Ibrahim waxaan leeyahay muxuu ahaayay hawshii maanta ku gabagabowday maanta waliba talagalka kaagamay hadhin ay waliba doonayaan inay dib ugu celiyaan wadankaaga halkay aad doonaysid iyo hooyadaas ay ku arki lahayd 20 sanadood aan ku arkin oo ka qoosatay oo dhimasho iyadu niyeysatay dibtan lagu sii haya wax weyn dadka aan lahayn cid u hadasha amba cid wax u ururisa Ibrahim waxa uu adduunyada Ilaahay ku soo saar oo ka qoosatay haddana nolol labaad baa Ilaahay ku siiyay تعبكيده مد الهي مد يكي أدون كذا أياد جلي دون تهدي الله هذا إلى هنا كم كل